qofka buka oo la booqdo wali fadli dheer loo sheegay qofku markuu ku sii socdo iyo markuu ka soo socdo wuxuu la mid yahay qof jannadii dhex socda oo midhihii jannada guranayo la mid yahay waxaana sii raacaya ama soo sagootinaya intaas oo kun oo malag baa la socota oo u ducaynaysa markuu walaalkii soo booqdo marka qofkii la booqdo booqashada waxa la rabaa inay noqoto booqasho wanaagsan xagga cibaadada horta in la yiraahdo xanuunka walladnaanaysa ilaahay idankii waa ka kacaysa waa dambi dhaaf biidnillah adkaar hadii lagu akhriyo niyada loo dajiyo leeyahay xanuunka waa dambi dhaaf walladnaanaysa insha Allah waa ka kacaysa wacinka in la yiraahdo marka labaadna in xagga cibaadada la yiraahdo wardadaalo bal salaada iyo wili gaaraantada ahlu cilmi ah haday u tagaan bal xagga weysadiisa iyo dahaaradiisa iyo salaadaha waqtiyadooda soo tukada iyo in xoogaa loo yara iftiimiyo way fiicanto lagu baraarujiyo inuu ku dadaalo dadka qaar ba markay bukoodaan cibaadada ka taga waana khalad taas marka saddexaad waxa la rabaa in lagu raagin booqashadiisa qofku iska xanuunsanaya waxa laga yaabaa shaqo laga qaban lahaa ama loo maydhi lahaa ama warmariye laga bedeli lahaa ama hawl laga qaban lahaa baa dhici karta meel loo dhigi lahaa in lagu raagin marka afaraad in aan qofka wax xun dhagiisa la maqashin marka loo taga dileena xanuunsanaysa alla xanuunka awowgay buu dilay kama kicin waabuu ku dhacay qof buu ku dhacay lugtaas la jaray de qofkiiba khalaas waa dhaadhicisay xanuunsanaya in aadan qofkii marka u tagto aadan u dayrin oo aadan oran xanuunkan hebel baan ogaayo kama kicin alla muxuu sakaraad ilaahay ma maartay waagi dama oofsaday qofkii muxuu noqonayaa niyadii baa daraska noqonaysa soo ma jeedid wacaynka